Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay inuu baarlamaanka hortagi doono 9 bishan si uu halkaas u geeyo waxqabadka xukuumaddiisa tan iyo markii xilkan loo magacaabay. qoraal goordhaweyd laga akhriyay telefishinka qaranka ayaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu baarlamaanka horgeynayo warbixinta guud ee dalka. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. war ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya oo nuqul kamid ah uu soo gaaray telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Muqdisho 1 February 2021. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxa uu tacsiid hiiraan leh u dirayaa shacabkii xalay waxyeeladu ay ka soo gaartay weerarkii Hotel Afrique. waxa uu ahaa weerar lagu soo qaaday shacabka Soomaaliyeed ee Barimageedada ah. cadowgu waa ay sii daciifayaan taagdaradooda ayaana sabab u ah weeraradan quusta ah. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay in xukuumadda oo 3 bilood jirsatay ay waxqabadkooda 100 maalmood ka jeedin doonto golaha baarlamaanka talaadada 9 bisha Febraayo 2021. ugu dambeyn Ra'iisul Wasaaraha waxa uu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed in ay feejignaadaan cadowga gudaha iyo kan dibadda isku meelna ay uga soo wadaan. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa xilka haya muddo 4 bilood ah kadib markii xilkan loo magacaabay bishii September dabayaaqadeedii sanadkii hore. xilliga uu Ra'iisul Wasaaruhu xukuumaddiisa horgeynayo baarlamaanka waa maalin kadib xilligii loo qorsheeyay in ay dhacdo doorashada madaxweynaha. warar ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaaruhu baarlamaanka ka dalbanayo muddo kordhin cayiman si ay xukuumaddiisa uga shaqeyso hirgelinta doorashada. madaxweyne Farmaajo oo bishii February 8 ee sanadkii 2017 xilka madaxtinimada loo doortay ayaa sidii madaxweynayaashii ka horeeyay ku guuldareysanay in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo.